mid ka mid ah beelaha deegaamo badan oo kamid ah bariga magaalada Burco oo muddo shir uga socday deegaanka Gebegebe oo 68 kiiloomitir jihada waqooyi bari kaga aadan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kaasi oo ay kaga tashanayaan ayahooda waa kuwan waayeelka waxgaradka maamulka deegaanka Gebegebe oo ka warbixinaya warmurtiyeedka isla qaateen muddadii uu socday shir dhaqameedkani waxaan kale uga mahad celinayaa xeerarka iyo nidaamka fiican ee ay samaysteen ee ay doonayaan mustaqbalka inay ku dhaqmaan taana waan uga mahad celinayaa dawladdu dadka aan xeerka lahayn way nacabtahay laakiin dadku hadduu xeer leeyahay oo xeer dhaqan leeyahay dawladdu way jeceshahay xeerkaas baa loo raacaa ciddii xeerka ka hor timaada ayay dawladdu wax ka qabataa markaa horta waxaan leeyahay tolkayow ilmaadeeraday reer Yuusuf Cabdiyow xeerka samaysateen raaca goonida isu taagnay inaynu taageersanahay oo ay muqaddas tahay jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka raaca waxa weeye ee saddexaad in reerkani oo ah reer Yuusuf Cabdi Abakor waxa ay ku go'aansadeen inay ku samaystaan xeer adag oo dhaqa noloshooda inta ay dunida saaran yihiin waxa weeye waynu wada maqlaynay go'aamadii iyo sidii ay gudideen u soo dhigeen reerka dhaqaya waalimi kama ogaada ciidda fulinaysa waa aniga ninkii la qabto hadhow waxa giigiglayn taasaa lagu dhaqmaya laguna fulinaya aniga iyo gudidaydu waxaan idiin sheegayaa anugu dee caaqilkii hore baan ahaa jiif caaqil cabdirashiid maxamed bile iminkana tolkay way isii jadiidiyeen mar labaad bay isii jadiidiyeen aad iyo aad baan idinku maxad celinayaa tolkay tol jira noqda ilaahay masiibooyinka socda ilaahay haynaa reer maryo ilaahay waxaanu ka baryaynaa khayr dhammaantiin ilaahayna siiyo ilaahay caloosheennu saafi ka dhigo ilaahay inuu inaga aqbalo wax kastoo aynu ku ducaysanay sidaa laynagula dardaarmay inaynu salaada xooj hadeerta guddoomiyuhu wuxuu halkan ka cilaamiyey ama ka sheegay inama dhuxul gubaya guddoomiye in deegaanka la gubo waa qalad deegaanku waa kaynu ku noolay guddoomiye waxaanu kuu sheegaynaa inamada wax gubaya waa inama bilaa camala warkooda waxaa islaa hore gaar ahaanu ka wada hadla maadaama tii dhuxushaa waan joojinaya guddoomiye annagoo beeshiya oo caaqilkiya waxaanu ku leenahay inamada u samee camal wixii buka ilaahay ha shaafiyo waxay nala joogay iyo waxay naga maqan ba ilaahay ha shaafiyo kuwii naga soo codsaday iyo kuwa kale ba ilaahay ha shaafiyo ilaahay wuxuu buka shaafi dadkii dunyada baa wuxuu buka shaafi ilaahay saasaan ku wajis shirkan halkan loo fadhiyo ee beesha Yuusuf Cabdi waa shir yani waxa weeye danaa reerka lagaga hadlayay yani waxa weeye duco iyo alla barina u fulki ahaa alla bariga kan marka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu maaragtay ahaysiiyay waa Cabdi Axmed Yuusuf telefishinka caalamka Universal magaalada Burco.